madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynaha على مساركي سمانت وجوجنو madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha golaha wasiirada labada heer dawladeed iyo sidoo kale baarlamaanka aqaladiisa kala duwan labada heer dawladeed siyaasiyiinta iyo madaxdii hore salaadiinta boqorada garaadada iska kala yimid qaybaha kala duwan ee ay dadka Soomaaliyeed degaan taliyayaasha ciidamada taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed bulshada qaybaheeda kala duwan inta lagu joogo intaan xusay iyo intii aan xusin waa iga raali ahaanayaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin wanaagsan marka hore waxaan rabaa inaan halkaan mahad ballaaran uga soo jeediyo ugu mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari iyo dowladdiisa iyo shacab weynaha reer waqooyi bari sidii milgaha iyo maamuuska sare lahayd ay noo soo dhaweeyeen waa mahadsantihiin reer waqooyi bari meel aad joogtaan badal iyo dabad waxaan rabaa sidoo kale halkan inaan raahdo madaxweyne hortaada runtii uga hambaliyeeyo si buuxda madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari cabdulqaadir axmed oo cali anigu hadda waa weydiiyo firdhiye waa naqti fiicanna waa ku soo aaduu yiri waana jeclaha waa rabaa hoy firdhiye madaxweyne ku-xigeenka cabdirashiid abwaan gudoomiyaha baarlamaanka aadan iyo golayaasha dowlad goboleedka waqooyi bari iyo shacab weynaha baan idhaahdo si buuxda hambaliyo 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 intaas kadib marxaladda dowlad goboleedkaani ku dhismay runtii waxay ku soo aaday waqti dalka ka jirto ama ay ku soo beegantay xadgudub uu ka jiro oo waddankeenna meelo ka mida lagu soo xadgudbay dowlad goboleedkan iyo bulshadaanna xadgudubkaas iyo dhibaatadaas xataa qayb ka mida ay soo gaartay si gaar u soo gaartay waxaan leenahay doorkiinnii iyo mowqifkiinna aad taariikhda u lahaydeen waa idinku ammaanaynaa waana ku mahadsantihin dadkan deegaanadan dega ama gobolkan dega ama dowlad goboleedka waqooyi bari weligood waxay u taagnaayeen xornimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo daraawiishtii welina waa u taagan yihiin waxaan leenahay meeshiinaas ka sii wada anigu weliba madaxweyne waxaan leeyahay laascaanood hay-adaha dowladda federaalka ah xarumo iyo qaybo ay ku shaqeeyaan laga siiyo taariikh aan dadka galay ama ku leexday waxa aan sax ahayn aysan mahadin doonin unbaa dhacaysa moogiye Soomaaliya kala go'i mayso isku day badanna waa soo martay warka walaalihii ama ciddii ay ku jirto maankeedana si naxariis leh walaalnimadahan ugu baaqaynaa inaysan ku sii hungooyin wadadaas oo waxaan leenahay Soomaaliya mid bay ahaanaysaa insha Allah xadgudubkuna ma shaqay doono iyo sida ay u dhacayso dhibaatada hadda la wadaa runtii waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka mar kale reer waqooyi bari taariikhdii aad ku sumtanaydeen halkaa ka sii wada
intaas kadib maamulka aad dhisateen oo dadaalkiisa iyo dhismihiisa la idinkala qayb galay tacab badan baa soo geliseen waa u soo dhabar adeegteen sidaad ugu soo dhabar adeegteen ugu dhabar adayga taabagelinta maamulka siduu u taabagalo lugihiisa ugu istaago ugu dulqaata wax kasta oo idinku keeni kara in dib u dhac u yimaadana aad uga foojignaada annagu reer waqooyi bari meelo badan baan iska leenahayo dhinaca farafudaydka iyo wax rogidda waa isaga dhownahay yaan laga daba shaqayni saaxiibkay iyo maamulka iyo dowladda yaan laga daba shaqayni geesaha ka istaaga oo iyaysan dhicin sidii farax macallin sheegay yaan mararka qaar haysmarinina maamulka waqti hal la siiyo uu ku sameeyo horumar abni mid dhaqaale mid siyaasadeed oo ugu adeega bulshadiisa waqtigaas ha la garab galo annagu haddaan nahay reer galmudug meelo dareen badan baan wadaagnaa reer waqooyi bari waxaanan rabaa inaan ka caddeeyo inaan si dhow wada shaqaynayno maamulka iyo dowladda iyo shacab weynaha reer waqooyi bari runtii waxaan leenahay isku xiraan bulsho iyo mid maamulba ilaahay idankii soomaalida dhanna maamulka waqooyi bari wuxuu u yahay maamul ugu fadhiya macno iyo miisaan gaara waa halka aan maanta ka dhowrayno oo aan ugu taagannahay inuu noqdo uuna yahay weligiina ahaa meeshii aynan gorgortanka marna ka gelin midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed saas darteed waxa weeyaan Soomaalidu meel ay joogtaba maamulkaana il gaar ah lagu eego ayuu ka badan yahay waxaan leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya madaxdii qaranku maanta joogaan madaxweynihii jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarihii waa ku dadaasheen garbaasiiseen si weyn baad runtii maamulka waqooyi bari iyo Soomaaliba ugu dadaasheen waa idinku ammaanaynaa waxaan leenahay sida haddana siday ku dhaqaaqi lahaayeen hore ugu socon lahaayeen u garab istaaga sidoo kale hay-adaha caalamiga ah saaxiibada Soomaaliya waxaan leenahay maamulkan si gaar ah isagana waxaan ugu baaqaynaa in isha loogu hayo oo si gaar ah ay runtii dadaal loogu bixiyo taasna ugu baaqaynaa guul horumar iyo wadajir ayaan soo daarmaynaa reer waqooyi bari meel aad joogtaanba guulaysta hankiinu meeshii uu joogay Soomaaliduna idinku majeeratay hoos ha uga soo deginina Soomaalinimo jooga halkaasna ka wada hawsha insha Allah ta'ala aad iyo aad u mahadsantihiin Allah idin sharfo mar kale waxaan leeyahay baraare iyo barwaaqo aan mar kale isugu nimaadna insha Allah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.